gudoomiye ku-xigeenka guddiga dhaqaalaha beesha ciise maxamed muuse bucul bookhbuuni ayaa maanta kormeer ku tegay dugsiga boodhanka ee magaalada saylac halkaasi uu soo indhaindheeyay baahiyaha ku gadaaman dugsiga magaalada saylac isagoona halkaasi warbixinno uu ka siinayay maamulaha dugsigaasi cilmi sahal waxau kaloo gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha ee beesha ciise maxamed muuse bucul bookhbuuni uu soo indhaindheeyay inta qol uu ka kooban yahay iyo agabka kombiyuutariska ay ku bartaan ardaydaasi isagoona dhinaca kale maamulaha dugsigaasi uu tafaasiir ka siinayay sida dugsigani boodhanka uu shaqeeyo iyo waxa ay bartaan ardaydani intaasi kadib ayaa si wada jira waxaas xaafadda la hadlay gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha maxamed muuse bucul bookhbuuni iyo maamulaha dugsiga magaalada saylac cilmi sahal iyo macallimiinta oo iyagu ka warbixiyey duruufaha ku gadaaman dugsigani waxaana hadaladoodii ka mid ahaa malaha library ardaydu ay ka aksanayeen marka waxaa muqarrar ka raaciyeen malaha laboratory science ay ku dhiganayeen ardaydu ee lagu tusayay isagana ma jiro wax kale oo jirin maxay hay'adaanay musqulihii ma day schoolka maalintii musqulaha ardaydu ay gali lahaayeen iyagana ma jiraan waxa kale oo jirin maxay hay'adaanay miskiinka ardaydu ku tukan lahaayeen qaybta boodhka isagana ma jiro oo ma dhisna buugaantii ardaydu akhrisan lahaayeen oo inta badan wasaaradda ayaa buugaanta wasaaradda ayaa keenta ilaa imika kabanaan helin waxaanu ka dhignaa xabadkii macalinku haystay oo aad u hallaabo aan helin ayaan haysanaa xagga buugaantana saasaan ka nahay dhismayaasha dugsiga oo aan ku filayn oo 4 fasala oo sanadka dambe ardayda soo baxday tiradoodu aad u badnaanaysaa sidaan soo diiwaangelinay iminka deegaanka soo baxaysa aad iyo aad arday xad leh waa soo baxay sanadka oo hadday boqolee ku arday ka badnaanaysa arday doonto sida diiwaangelinta fayno ayaa soo baxay sanadka dambe waxaa loo baahan yahay markaa fasallo waxaa kaloo loo baahan yahay musqulihii ay ku dhigan lahaayeen waxay loo baahan yahay qaybtii jiifka ee ardaydu seexan lahaayeen oo iminka sanadka ku kooban intaa ardaydu ay seexato kooban marka ardayda kale soo baxay sanadka dambe qaybtay jiifsan lahaayeen iyo baahidoodii oo wada socota iyagana la socota sanadka dambe run ahaantii kharashka intaa imika la isleeyahay waxbaa laga qabtay baa aad u fara badan marka run ahaantii la yidhaahdo oo maxay haydanay xaddigiisu aad u fara badan marka dhismayaal baa loo baahan yahay in la dhiso oo maxay haydanay meesha ardaydu seexan lahaayeen computeriska ay qolka ku dhigeenay wadankiisana waxa weeyaan waa aad u kooban yahay waa diin mana qaadi karo afraad computeriska waxa asaas ku yihiin waa xagaa waa xeeb laguma dhigan karo soo wuxuu baahan yahay bool in loo dhiso oo ardaydu fadhiistaan waa saca oo la dhiilay oo qofku wax ku baran karo beed wax ku baran kara insha Allah taala waxa tagi doona mooska biyaha badda ardaydu awal jaaliyada reejoogid waxa aad iyo aad u mahad celinna way noo samaysay mooskan oo alla daara dhici jiray marka hore ardayda buugaanta geedada badda qaar baa habsaan jiray mooskaas oo si fiican lagu sameeyay oo badda aan ka hagaagay intaas aan soo dhiganayba ayaa waxa nimcooyinkii ka dhacay wadanka ee roobka ahaa ayaa faruuray dabeedna badii baa soo gashay taasina baahida inta noogu culus bay noqonaysaa ardaydii maanta maalin kasta tabaa soo bixinayso dooqadii soo dhexmaraysay buugaanta kaga daadanayso taasina waa qodob waxa weeyaan oo kaloo jira qaybta maxay haydaanay ardayda caafimaadka qaybta caafimaadka ardaydu waa dad isku yimid meel boodhina waxay u baahan yihiin daryeel caafimaad ayay helaan maalintii toddobaadkii la baara ardayda caafimaadkaasina aad baan ugu liidanaa xagga caafimaadka maxay haydaanay qaybta caafimaadka sida ardayda xoogga looga qabto jooga beesha ciise ee deegaanka saylac iyo haya waxaa jira oo rabnaa inaanu ka faa'iideysano fursad ugu qaalisan ololaha ay ku jiraan jaaliyadaha sida kuwa UK Scandinavianka Canada waqooyiga America ee beesha ciise abaabulka iyo ololaha ay ugu jiraan sida ugu soo qayb qaadan lahaayeen horumarka deegaankooda ayaanu waxaanu ka wada hadalnay inay priority-geeda u gudbino iyo cabashadayda haddaanu nahay raggii guddida ahaa iska xilsaaray arrinkaas annagu manihin guddi ay cidi dooratay dad iska madax bannaan oo mutadawiciin aan nahay wax dan ahoo hadda noogu jira hawshana
ma jirto waqtigeega in iyo fikirkeega inaanu siino sidii horumarka iyo darayda deegaanka ku muuqataan ma siino waqtiga way mahadsan yihiin maamulka iskuulka raggan dhalinyarada maamulka iskuulka macallimiinta waxaan raggan waqti keli midda wada furmay iskoolka muddada uu jiray 2 sanadood iyo barka laftigooda tacabka iyo fikirkooda iyo aqoontooda ay siiyeen aad ugu mahadsan yihiin walow darayo badan iyaga laftigooda ay u dheertahay halkan oo inay wixii dheef ama wixii darajo ah ay qofka macallinkii waqtiga heli lahaa ay jirin waa tabaruc iyaguna waxay ku shaqeynayaan ilaa imika cidda keliya iskoolkan gacanta ku haysana waxa weeyaan waa jaaliyadda reer Djibouti ragga iska xisaaray jaaliyadda Djiboutina aad baan ugu mahadnaqaynaa ay hawshaas gacanta ku haya laftigooda dhibaata iyo culays badan baa halkaa ka haysta waxaan jecelahay inta kale ee qurba jooga beesha ciise ee ku nool dalalka dibadda waxaanu ka codsanaynaa markaad dhegaysatiin codsigaas iyo cabashadii weedinka maqlaya ay soo jeedeen maamulka iskuulka kuwa kale oo sidaa u dareeysan iyo baahiyo kale oo jirana waa inuu soo gudbi doonaa inuu soo diri doon inaad u soo guntantii sidii aad darayada wax nogala qaban lahaydeen kow iskoolkan 3 qodob ee ugu muhiimsan waxay tahay in lagu beeriyo dhismayaal qolal waxbarasho oo ilaa 4 kalaas ah goobta hurdada ee aan soo marnayna in lagu beeriyo ilaa 2 hool oo kuwa jiifka ah meelaha wax lagu cuno musqulaha xagga hoyga qalabka computeriska ama laboratory wax laabo male meeshan haddii ciyaalku wax practical ah way sameynayaan mid theory ahaan bayna ku qaataan taariikhda soo saama in wixii aad naga caawin kartiin hadday tahay library male haddii la heli karo buugaagta iyo wixii library iyo qalabkii computeriska wixii teknolojiyada ku soo biirin kartiinba diyaar baan u nahay inaad ugu soo gargaartiin baaqaas waxaan u jeedinayaa mar labaad khaasatan qolada qurba jooga Ottawa ee dalka Canada oo caawa sidaan balan ku ahay shir laftigooda inay baahiyahaas dhuuxaan oo eegaan inta kale ee dhageysanaysa ama daawanaysa ee daawan doontaa waxaan jecelahay inay arrintaas iska saaraan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi intaasi kadib ayaa maamulaha iyo gudoomiye ku-xigeenka guddiga dhaqaalaha Maxamed Bucul waxay soo kormeereen mooska weyn ee ay ardaydu soo maraan ee u dhaxeeya magaalada iyo boodhanka iyagoona sheegay in mooskaasi rabixi ramxaadkii ee beerroobkii ka daay muddooyinkii ugu dambeysay uu khasaare xooggan u geystay isla markaasina marka ay ardaydu soo marayaan ay mooskaasi kala kulmaan tacadiyo badan iyaga oo buugta iyo mobilada guud ahaanba ay ka qoydo mooskan ayaa muddooyinkii ugu dambeysay waxaa qaaday daad intaasi kadib ayaa waxay soo kormeereen qolalka seexadka ee sariiraha ee dugsigaasi Cabdisaad Maxamed Cabdilaahi Shinila News magaalada Saylac